mulkiilaha shirkadda xabka iyo Fleenka ee aslimayda ganacsiga Barkhad Jibriil Xasan iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo waxaana mulkiilaha shirkadda aslimayda ay u helinayaan xubno ajaanib ah safarkiisani daaran yahay kormeeridda mashaariic iyo xarumo caafimaad oo shirkadda aslimayda ka hirgelinaysa magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo waxaana duleedka galbeed ee magaalada Ceerigaabo si ballaaran ugu soo dhaweeyay barsaab xigeenka gobolka Sanaag taliyaasha qaybta booliska iyo militariga ee gobolka Sanaag madax dhaqameed iyo dadweyne kale oo tiro badan waxaan ugu horeynba halkaasi ka hadlay barsaab xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sanaag Cabdirasaaq Maxamed Faarax iyo boqor jiraha Xaaji Xasan Jibriil Xasan Jibriil iyo waftida la socota dadkan cadaanka ee dhaqaatiirta iyo badan iyo biyegelinta aad baan idin soo dhaweynaa run ahaantii gobolkii nibaatmaadeen shirkadu hadday wax qabato oo ay wax qabadkeedu muuqdo waa loo kacaa oo haddaan reer Sanaagnahay waxtarku nuguma badno oo waxaan jecelahay shirkadda wax qabatay inaan anagu ka hortagno meel kasta wadin ka hor imanaynaa waayo sababtu wax qabadka aad keensatay baan kuugu imanaynaa mulkiilaha shirkadda aslimayda Barkhad iyo martida la socota dhaqaatiirta iyo maalgashadayaashaba waxaan leenahay soo dhawaada runtii waxaan oran karnaa shirkadda aslimayda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gobolka Sanaagba wax weyn bay ku soo kordhisay aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa aan maanta ku soo dhaweynaynaa mulkiilaha shirkadda aslimayda iyo wafdi ballaaran oo wado oo mashaariic ka fulin doonta gobolka Sanaag qaar furi doonta waan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay shirkadaha kale ee gobolka ka tirsan war meelun wax ka muujiya aan marnu soo dhaweynaa furtaan waxa iyaguna halkaasi ka hadlay afayeenka shirkadda aslimayda Cabdicasiis Aadan Jalaawe xogayaha guud ee shirkaddaasi aslimayda Maxamed Ismaaciil Axmed iyo mid ka mid ah dhaqaatiirta ajaanibka ee wafdigani ka tirsanaa ku soo dhaweynaa wafdi heer qaran oo hogaaminayo gudoomiyaha shirkadda aslimayda Barkhad Jibriil Xasan iyo wafdi cadaan oo la socota iyagoo inooga warbixin doona mashaariicda halkan ka wadaan iyo hawsha ay u socdaan waxa wafdigeegan hogaaminayay mulkiilaha shirkadda aslimayda Barkhad Jibriil Xasan wafdi ballaaran baan nahayn oo ilaa heer caalami ah oo u socota mashaariic horumareed oo gobolkan aanu ka fulinay sidii loo sii dardargelin lahaa qaarna xariga looga jari lahaa ma dhammaanayso baahida gobolku way badan tahay waxa kaliya muuqanaya marka laga reebo mashaariicda shirkadani fulisay gobolka in wax laga qabtay wadada kaliya ee dawladii hore ay hirgelisay waxaan jecelahay dawladdan iyo dadka deegaanka u dhashay ama ganacsatada gobolkan u dhashay ama qurba joogta gobolkan u dhashay in loo soo jeesto horumarka gobolka and your hospitality for joining us here as we arrive today in Ceerigaabo. So the progress has been good. In the last week we have water for the hospital. We have 2 boreholes, one in the hospital and one just outside. We have a team working on the civil works and fixing a number of things in order for us to make sure that we have the right infrastructure in place. And in the next 2 weeks we have a team here of medical people, of civil works people helping us do the final planning. And early next year we will be ready to ugu dambeyntina waxa halkaasi ka hadlay mulkiilaha shirkadda aslimayda Barkhad Jibriil Xasan oo halkaasi si ballaaran uga mahad celiyay soo dhaweynta loo sameeyay iyo mashaariicda shirkadiisa ay ka wado gudaha magaalada Ceerigaabo soo dhaweynta reer Sanaagno qabteen ee taliyaashu gudoomiyaha gobolka waan u mahad celinaa waxaan fariin baan u diray reer Sanaag oo ah gobolku waa gobol deeg ballaaran oo dad badan leh waa aragtaan halkaas hotelkii hore u dhisnay inaan joojinay oo nig horta baahida deegaanka teena ka horeyso waxaan halkaa hadalka kaga baxaya Sheekh Axmed Universal TV Ceerigaabo.